gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland Aadan Xaaji Cali Axmed oo maalintii labaad ku sugan magaalada Berbera ayaa maanta kulan ballaaran la qaatay mas'uuliyiinta gobolka degmada taliyaha qaybta booliska xereeyaha guud ee dawladda ee gobolka Saaxil mareeyaha dekedda weyn ee magaalada Berbera iyo waliba mas'uuliyiin kale. kulankan ayaa gudoomiyuhu nuxurkiisa ku sheegay mid ay iskaga wareysanayaan xaaladda cadaaladda iyo maxkamadaha ee gobolka Saaxil. waan ku faraxsanahay in maanta halkan isugu wada dhimaadno sharaf baan inoo tahay annaga haddaan nahay qoladeeda bahda garsoorka waxaan baryahanba ku jirnay maxkamaddii saraan soo rarnay marka goboladan Saaxil laga bilaabo ilaa wixii bari ka xiga ayay wareegaysay marka ujeedada ugu muhiimsan waxay ahayd in dadkeenu waa dad dan yar ah waa dadaan dhaqaale badan haysan marka dacwadaha waxa jira hadii jiraale gobolada ka yimaada marka dacwadaha waxa jira imika intii dambe 5 sano 4 sano u dambeeyay aad bay u kordheen dacwadaha soo gala maxkamaduhu haday madani tahay haday ciqaab tahay oo populationka kalsoonidooda sar u kacday iyo dadkii magaalooyinka u soo batay markii hore dadku abaarihii wixii 10 sano u dambeeyay abaar xooga dhacay marka nolol ballaaran ba ka jirtay xagga miyiga laakiin marka 10 sano u dambeeyay anigu 10 sano waan safray waa markii ugu horeysay 10 sano aan arkay roob min Hargeysa ilaa Yees haysta dhulkii aan gaadhay quraan intii hore fadhinay ilaa 9 cisho marka markii dambana tiiman baan kala dirnay marka Saaxil imika anigu hordhac baan u ahay laakiin way soo marayaan tiimankoodu way imanayaan halkan way fadhiisanayaan anaga oo si gobol xaadaya dacwadihii iyo wixii waana gobolka ugu dacwada yar gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Saaxil Cabdirashiid Duraan ayaa isagu sheegay in wada shaqayn buuxda ay ka dhaxayso maamulka gobolka iyo degmada iyo taliyaha qaybtaba maamulka gobolka haday tahay degmo iyo haday tahay barasaab iyo haday tahay taliyaasha ciidanka sida ugu wanaagsan ee loo wada shaqeeyo baan wada shaqeynaa lama waayo khilaaf oo maxkamaddu had iyo jeer markay dacwada laga yimaado qof baa cawdo oo qof baa dhibaato tirsado oo qof baa si kale wax u sheega laakiin ma dhaafto anaga dhexdeeda hadii garsooro laga cabanayo garsooraha anaga arrinkii lahayd xalila hadii wax kale oo mushkiladaha gobolka taagan ama isugu nimaadno waan wada xalilaa laakiin gudoomiye maanta halkan waxaan kaaga sheegayaa maayarka magaaladu hadaanu gacan qaban hadaanu garsoornahay maanaan dhaqaaqneen mareeyaha dekedaha Somaliland Saciid Xasan Cabdilaahi duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo barasaabka gobolka Saaxil injineer Axmed Ismaan Xasan ayaa si wada jira ugu mahadnaqay gudoomiyaha maxkamadda sare isbedeladii ballaarnaa ee uu ku sameeyay dhinaca maxkamadaha iyo sharcigaba ayaan ugu faraxsanahay maanta sida ay madaxdii hore ka dhawaajisay gobolku aad iyo aad buu isugu xiran yahay wada shaqayn buuxda aan leenahay maxkamadaha madaxda maxkamadaha garsoorayaasha iyo gudoomiyaasha si fiican aan wada shaqeynaa xilkan aad umada u hayso waxaan kaaga mahad celinaynaa ficilkii ku dhaca lahaa ee aad samaysay dalka oo dhan ka samaysay ee aad isku bedelka iyo shaandhada aad u qaaday garsoorka waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha maxkamadda sare iyo gudoomiyaasha maxkamadaha oo juhdi badan geliyay bilicda maxkamadda mahad taalamida waxaa leh maayarka oo hore halkan looga sheegay oo isagu suuro geliyay juhdiga gudoomiyaashu sameeyeen gudoomiyaha maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Somaliland maanta inuu noo yimaado gobolka Saaxil soo buuqdo isla markaana uu soo kaaya yeero si aan isku wareysano si aan u kala war qaadano aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa runtii wax badan ayaa maxaan ku idhaahday ku cadaanaya sida uu gobolku iyo maamulku u wada shaqeynayay indhahagana waad ku aragtaa Yaasiin Jaamac Ali telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV magaalada Berbera.